Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Walaal kusoo dhawaaw cashirkeena caawa. Insha Allah tacaala caawa waxaan bilaabi doonaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena. Insha Allah koorsigan wuxuu ka koobnaa doonaa ilaa 3 qaybood. Qaybta koowaad waxaa ugu talagalnay 3 cashir waa soo dhameynay. Fiiskii labaad caawa galayna insha Allah. Fiiska koowaad waxaa kusoo qaadanay what's affiliate marketing maxaa la dhahaa. Xoogaa introduction iyo waxyaabo badan aan ka bixinay xoogaa macluumaad guud ahaan. Cashirka labaad waxaa kaga hadalnay basic affiliate tools qofka xayeysiinta ama suuqgeynta sameynayo ama affiliate marketer-ka ah waxyaabaha laga rabo oo base-ka ah. Waxaan kusoo sheegnay haddaan ku xasuusiyo inuu Gmail account oo separate uu leeyahay oo commercial ahaan. Labo waa inuu local bangi leeyahay si lacagtiisa ugu soo dhacdo. 3 waa inuu ama Mastercard ama Visa card ama Paypal wax uu leeyahay internetka ilan wuu ugu baahanaa inuu wax ka iibsado waaye. Sidoo kalena waxaa dhahnay inuu Payoneer account uu furtaa. Waxaan kaloo isla cashirkaas ku sheegnay sida Payoneer account loo sameysto step by step. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaa Payoneerkii aa sameysatay oo insha Allah 3 maalin oo hadda wax yar kaaga dhiman tahay jawaabna aa heli doontid insha Allah. Inta badan Payoneerka dadka ma diidaan waa helaysaa barnaamijkaaga. Excuse me. Waa helaysaa jawaab way ku siinayaan. Marka barnaamijkaas kaas waa insha Allah waa soo sheegnay. Cashirka saddexaadna waxaan kusoo qaadanay inaa uu qofka website sameysto sida website loo sameysto waa sheegnay step by step. Waxaan kaa codsanayaa barnaamijkan haddii aadan awoodi karin inaa barnaamijkan aawadid inaadan waqtiga iska dhuminin waxyaabo kale inta aad kaga faa'iidaysatid waqtigaada qaaliga ah. Waxa aad baranayno waa xirfad. Xirfadana waxay u baahan tahay commitment ay u baahan tahay macnaha wax inaad joogteysiisid lagaa rabaa. Wax ma la rabo oo aad ka xiisaysid. Wax ma la rabo wax yar marka aad wadid aad iska dhaafaysid ama inaad iska dhageysatid maxaa la dhahay sheeko khudba camal sheeko camal inaad iska dhageysatid maaha. Waxaa lagaa rabaa barnaamijkan inaad wadid inaad practice ka sameysid waxa laguu sheegayo inaad qabatid. Tusaale ahaan waxaa lagu dhahay hadda Payoneer account sameyso waxaa laga yaabaa inaadan weli sameysanin. Okay. Haddaadan Payoneer sameysanin lacagta intee lagugu soo diraa see ku qaadan doontaa. Waxaa lagu dhahay website sameyso. Website-kii weli ma sameysanin waa laga yaabaa inaad sameysato waa dhici kartaa inaadan sameysanin way dhici kartaa. Marka waxa laguu sheegayo dhan waa muhiim. Website-ka markasta muhiim uu ku yahay. Waa sheegi doonaa wuxuu muhiim kugu noqonayaa mar walba. Marka please waxa aad baranaysid waa xirfad waa business. Business-ka dhabar adeeg uu u baahan yahay ma ahan business-ka wax ma jiro ganacsi isla markii qofka inuu iska faa'iido meel iska seexanayo ma jiro caalam. Qof walba waxa waaye ganacsiga waa inuu ku dadaalaa waa inuu ka miri dhaliyaa. Haddii qof kasta oo wax markuu saas iskaga bilaabo uu faa'iidi lahaa maanta ma jiri lahayn qof oo lacag la'aan ay hayso ama qof ma jiri lahayn. Marka guud ahaan waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan intaas kugu baraarujiyo. Step kastoo lagu sheegayo raac. Step kastoo lagu farayo sameey. Haddii u baahan tahay barnaamijka inaad ka gun gaartid. Barnaamijkaas u sheegnay waa iska free wax lacag ay kaaga baxayaan. Laakiin waxaan ka rajeynayaa insha Allah tacaala inaad ka faa'iidaysatid. Haddaa u baahan tahay barnaamijkan asigoo lacag ahne waa kuu sheegaa 3 meelood oo ugu muhiimsan inta aan aqaano. Meesha koowaad waxaa loo yaqaanaa 4%. 4% yalla website weyn waaye 4% challenge yalla. Website-kaas aad ku biiraysaa $497 waaye koorsada. Waxaa jira wax upsells la dhahayo koorsooyin asiga la xiriira jiro oo haddaa koorsadaas $497 aad dhiibtid kuwan kalena inaad gadatid waa ku qasban tahay sababtoo ah koorsadii oo la kala qaybi waaye. Marka isku guud ahaan waxay isku keenay lacagta $3,300 isku keenay markii guud ahaan la isku daro koorsadaas dhan. Meeshaas waa ka baran kartaa. Waxa aan hadda free-ga kugu siinayo weliba in details aan kugu siinayo xaggana waa ka soo baran kartaa isku mid waaye. 2017 meesha ka bartay ilaa haddana baartiya ka mid ahay. Maxaan lahaay galaasyadooda ku jira mastermind-ka ku jira weliba galaasyada heerka sare ku jira 4 sano ku jira. Marka guud ahaan waa ka baran kartaa meeshaas waa kugu dhiirigelinaya haddaa u baahan tahay hataa inaa aadid. 2 meesha kale inta aan kugu talinayo intaan ani koorsadan bilaabin meelaha ka heli kartid aan rabaa inaan kuu sheego waa aadi kartaa
waxaa ka baran kartaa John Cristani koorsadiisa oo loo yaqaano Super Affiliate System. Super Affiliate System ayadana waxaa waaye lacag $1,000 waaye, $997 waaye. Waa ka baran kartaa. Waxaa waaye Google-ka waxaa ku qortaa Super Affiliate System ku qor. John Cristani Super Affiliate System waa arkay. Waa $997 waa koorsadaas. Waxa lagu baranayna waxaa waxa hadda inta aan kugu sheegayo waaye. Weliba hata ani aan kugu soo gudbinayo luqadaada hooyo. Aan kugu soo gudbinayo ayadoo in details ah oo faahfaahsan aan kugu soo gudbinayo. Okay, sidoo kaleente course kaleento waxaa jira ka fudud asagana oo loo yaqaano Clickbank University. Clickbank University asiga $500 waaye, $497 waaye, 500 iska dheh. Asagana sidoo kale waaye barnaamijkaas affiliate marketing-ka lagu bartaa. Marka guud ahaan saddexdaas koorso waa aadi kartaa, waa fiiri kartaa, lacag hadday haysatid waa ka baxsan kartaa, waa kugu dardaarmaa, waa samaysan kartaa. Haddii intaas aadan awoodin lacagaas badan inay kaa baxaana aadan awoodin, aniga hataa ma rabo inay lacag badan kaa baxdo. Koorskan free-ga ka faa'iideyso. Koorskan isku day inaad practice gareysid haddii ay daacad kaa tahay, haddii aad rabtid barnaamijka inaad ka guun gaartid. Waa taasaan ka hadlaa. Laakiin haddaad iska dhegeysanaysid micno ma samaynayso. Okay. Caawa insha Allah tacaala cashirkeena qaybteena labaad section 2 waxaan kaga hadli doonaa meesha ugu muhiimsaneyd. Tusaale markii aad soo samaysatid barnaamijyadaas dhan aad soo diyaar garootid waxaa lagaa rabaa ugu horeyn waxaa lagaa rabaa shirkadii aad ku beeri lahayd. Waxaa lagaa rabaa productiisa ku dooranaa. Shirkadahaas ku kala dooranaa. Shirkadee fiican, shirkadee xun. Say ku fahmaa waxaas dhan rabaa inaan ka sheekeeyo maanta insha Allah. Ila soco. Insha Allah haddaan ku bilowno. Insha Allah ila soco. Section 2 caawa bilaabeynaa insha Allah. Cashirkeena koowaad lesson 1 waxaan kaga hadli doonaa ugu horeyn join affiliate program. Waxaan rabnaa markaan inaan ka qayb qaadano ama inaan ka mid noqono ama inaan iska diiwaan gelino shirkadii aan ka shaqaysan lahayn oo aan ka heli lahayn commissionka. Shirkadda sidee la iskaga diiwaan geliyaa? Maxaa laga rabaa markaa isdiiwaan gelinaysid? Maxaa laga rabaa inaad ogaatid? Waxyaabahaas aan ka hadli doonaa. Okay. Okay, haddaan hore usii socono. Intaadan shirkad iyo waxaas iska diiwaan gelinin waxaa lagaa rabaa inaad ogaatid suuqa aad ka shaqaysanaysid suuq noocee waaye. Booming industry ayaa lagaa rabaa. Suuqyada oo waxaa lagaa rabaa hadda caalamka 2020 aan ku jirno. Suuqyada caalamka ee dhaqaalahooda iyo dadka demandigooda iyo dalabkooda oo high u sareeyo oo lacagta laga helo oo dadka aad ay u daneeyaan inaad focus ka saartid ayaa lagaa rabaa. Suuqyadaas shirkadaha ka shaqeeyo iyo productyadaas ayaa hadhowdii xayeysiinaysaa. Ma la rabo suuq iska dansan oo dadka intiisa badan aysan rabin productigooda inay waqti kaaga dhumo ma la rabo. Waxa ugu horeeya aad fiirinayso waxaa waaye suuqan aad ka shaqaysanaysid ama badeecadan aad suuq geynaysid. Suuqeeda ma yahay suuq dadka aad ay u wada rabaan oo dadka ay soo dhaweynayaan oo dadka ay u baahan yihiin ma yahay. Marka booming industries-ka aan sheega 2020 hadda aan ku jirno. Suuqyada caalamka ee aadka loo xiiseeyo ama aadka qaali u ah oo qofka hadduu uu productskaas oo xayeysiiyo oo lacagta badan ka helayo ayaa rabaa inaan ka sheekeeyo ugu horeyn. Suuqa muhiim waa niche-kaada niche market aa lahaa suuqaada inaad ogaatid muhiim waaye. Okay. Suuqa koowaad oo ugu muhiimsan waxaa loo yaqaanaa healthcare. Waa caafimaad wixii ku saabsan waa ognahay. Caafimaadka muhiim waaye. Marka productska caafimaadka ka hadlaayo dadka caafimaadkooda aad ay u daneynayaan. Marka productska caafimaadka waa aad iyo aad muhiim waaye. Marka waxayna leeyihiin dalab aad u fiican ay leeyihiin. Marka productska caafimaadka ka hadlaayo iyo waxyaabahaas waa muhiim. Marka productskaas iyo wixii ku saabsan maxaa la caafimaad xooga la saaro xooga saar insha Allah. Labo technology. Productska ama wax kasta oo ku saabsan teknolojiyada caalamka maanta kombiyuutarada, software-ada, taleefanada waxaas dhan aad arkaysid affiliate marketing ay leeyihiin shirkadaha bixiyo. Affiliate program ay leeyihiin shirkadaha bixiyo. Ku biir wixii technology ah sababta teknolojiyada maanta aad loo isticmaalaa. Marka teknolojiyadana muhiim waaye suuqaas teknolojiyada fursad badan ka jirto insha Allah. Suuqa saddexaad oo muhiimka ah waa investment. Wixii lacag ku saabsan waa lacagta internetka laga soo raadinayo.
how to make money online oo kale, investmentiga caadiga qofka siduu u maalgashanaa dahabka iyo waxyaabahaas oo kale. Waxaas dhan wixii investment iyo lacag ku saabsan suuqaasna muhiim waaye. Qofka inuu shirkadaha waaweynka oo waxaas ka hadlaayo lacagta iyo waxaas ka hadlaayo waa inuu affiliate uu ka noqdaa oo productigooda u xayeysiiyaa. Marka suuqyadaas waa suuqyo aad iyo aad loo jecel yahay, suuqyo aad iyo aad u horumarsan waaye. Waa suuqyo dalab leh oo qofka uu ka faa'iidi karo waaye. Okay, suuqa kalenta waxaa ku xiga education, waxbarashada. Educationka hadda aan ka hadlayno waa e-learning waaye. Macnaha waxaa waaye internetka meelaha koorsooyinka lagu bixiyo oo lagu barto haddii e-commerce la baran lahaa iyo haddii Udemy wax laga baran lahaa iyo wixii ku saabsan course oo laga barto internetka gudihiisa muhiim waaye. Marka koorsooyinka internetka lagu barto iyo industry-gaas education-ka ah, waxbarashada ah, maasha Allah waxaa waaye aad iyo aad waa haddaa ku biirtid ama koorsooyinka iyo waxaas affiliate marketing ka noqotid, waxaa waaye wax aad iyo aad weyn aa kaasoo galaa, marka muhiim waa isagane. Sidoo kaleenta waxaa ka mid ah food. Bini'aadan aan nahay, cuntada lama huraan waaye, marka cuntada muhiim waaye. Cooking-ka iyo food-ka iyo waxyaabahaas cuntada iyo cabitaanada iyo waxaa waaye suuqooda aad iyo aad u fiican yahay ayagane. Okay, suuqa lixaad oo ugu muhiimsan healthcare waa soo sheegnay, mar labaad aan kusoo celiyay, sorry. Energy waxaa waaye solar-ka iyo waxyaabahan solar-ka qoraxda la dhigo iyo wax kastoo energy ku saabsan, waxyaabahaas dhan oo energy ka hadlaayo, waxyaabahaas ku saabsan energy-ga, suuqyada energy-ga ah. Solar-ka ka mid ah oo qoraxda iyo waxaas dabka dhaliyaa ka mid ah solar-ka, dadka aad iyo aad ay u xiiseeyaan. Waxaa kaloo ka mid suuqyada naftada oo kaleenta, suuqyada gaaska caalamka oo kale, waxyaaba baasiinka oo kaleenta. Shirkado waaweyn aa jiro waxaas ka shaqeysto, shirkadaha baabuurada oo kaleenta iyo waxyaabahaas oo energy-ga ku saabsan oo kaleenta, shirkadaha korontada ku saabsan energy-ga isticmaalo oo kale. Waxyaabo badan aa internetka ku jiro, shirkadahaas aa iska diiwaan gelinaysaa, muhiim waa marka affiliate aa ka noqonaysaa. Entertainment, madadaalo waaye. Waxyaalaha lagu madadaalo inta badan ayadana muhiim waaye. Dadka madadaalo u baahan yihiin, dadka waa markii ay shaqooyinkooda kasoo laabtaan fasaxyada markii la galo oo kale, waxyaabahaas laisku madadaalinayo, products-ka iyo services-ka laisku madadaalinayo haddaa aragtid, waxaa waaye ayagana lacag badan aa ku baxdo. Ha moogaanin ayagana waa muhiim waaye, dadka aad iyo aad ay u jecel yihiin. Wax walbo oo demand leh, suuqyada demand-ka leh ha ka sheekeyneyna oo hadda kor u socdo oo dalabka leh. Okay, transportation, wax walbo oo transportation ku saabsan. Tusaale ahaan ani hadda maku dhahayo diyaaradaha iyo waxaas, laakiin muhiim waaye. Hadda waxaa jira hoteelada oo kaleente, qofka markuu soo degaayo oo kaleente hotel kaleente loo qabanayo oo kale, shirkad weyn oo waxaa la dhahayo jiro booking.com la dhaho. Hoteelada iyo waxyaabahaas laga dalbadaa. Booking-kaas oo kaleente camal haddii affiliate marketer aa ka noqotid, waxaa waaye internetka ugu xayeysiisid, halkii qof oo aa keentid ticket-ka uu goosto lacag badan aa ka helay. Marka muhiim waa transportation-ka. Okay, waxaa ugu dambeeyo textile, shirkadaha dharka tolo oo soo saara dharka soo saaro oo kale ayagane lacag badan aa ku jirto. Markaas intaas aa arkaysid affiliate marketer waa ka noqon kartaa. Waa wax aad u badan, ilaa 9 aa soo sheegnay, hal aa kusoo laabtay, laakiin 9 aa soo sheegnay. 9-kaas aan soo sheegnay micnaheeda waxaa waaye suuqyadaas waa suuqyo hadda caalamka aad iyo aad ganacsigooda oo aad u koraayo waaye. Marka ka faa'iideyso suuqyadaas wixii affiliate marketing oo suuqyadaas ku saabsan ka faa'iideyso. Isku day mar walba industry booming ah oo cirkas ku socdo inaad mar walba aad ka qayb qaadatid, isku day. Okay, intaas waxaa ku dhaafeynaa industries-ka. Okay, productiga see ku dooranaa marka. Tusaale ahaan waxaan doortay suuq, waxaan doortay aan kasoo qabtay investment aa doortay tusaale ahaan. Investment waa suuqyada maalgashiga iyo lacagaha iyo waxyaabahaas aa doortay tusaale ahaan. Products-ka marka see ku dooranaa, productiga fiican kan inuu yahay see ku fahma. Okay, products-ka markii la dooranayo criteria uu leeyahay. Macnaha hab loo maro uu leeyahay marka aad dooranayso aad iskaga fiiri. Okay, ani waxaan rabaa product marka aan dooranayo, industry-ga aan ka dooranayo waa inuu yahay industry booming ah.
tusaale ahaan product haddaan doorto oo suuqiisa uu iska hooseeyo wax kaa gadanaya male ileen dalab ma laha marka productiga aad dooranaysid waxaa qasab ah inuu kamid yahay industry ama suuqaasoo dalabkiisa uu koraayo oo dadka aad iyo aad ay u rabaan tusaale ahaan product caafimaad oo kale hadduu yahay tusaale ahaan alaab oo maxaa ladahay technolojiyada ka hadlayso oo kale haddii alaab transportationka ka hadlayso oo kale oo dadka aad u baahan entertainmentka ka hadlayso oo kale inta hadda aan soo sheegnay waa inuu kamid ahaadaa sheyga aa adi xayeysiinaysid muhiim waaye kow labo productiga adiga aa markaas rabtid high in demand inuu yahay tusaale ahaan waxaa dhici karto productigan ayasoo kamid ah investmentkii kamid ah suuqa marka aa fiirisid inuu xoogaa demandigiisa ama dadka say u rabaan uu yar yahay xoogaa dhici karto marka product demandigiisa hooseeyo ha isku qaadanin waxaa laga yaabaa niyadda inaa iska dhahdid productiga haddii dad badan xayeysiinayaan oo competition badan uu jiro sidee ani ku helaa sale sidee ku helaa maya competitionka waa wax fiican waaye competitionka wuxuu ku baraa inaad fikirtid dadka garbahaada taagan inaad ka kormartid inaad isku dayid aa lagaa rabaa marka competitionka waa saaxiibkaaga the competition is your friend saaxiibka waa competitionka marka ha isdhihin competition dadkaas intaasoo kuna waxaan sameynaysaa mid yaroo iska khafiif raadi maaha product mar hadduu high demand yahay wax fiican waaye adaa lagaa rabaa dadkaas inaa saa ugu kormari lahayd caqligeeda iyo istaraatiijiyadeeda aa keensatid aa lagaa rabaa okay productiga waxaan nahani marka koowaad waa inuu kamid yahay industry high booming ah aa lagaa rabaa booming industry inuu kamid yahay labo isla asigaasna dadka inay aad u xiiseynayaan productiga oo dad badan ay soo dalbanayaan okay saddex waxaa laga yaabaa inaad dhahayd high demand si ku fahmaa productiga inuu yahay waxaa la isticmaalaa wax la dhahayo google trends wax la dhahayo google-kaa tegay google trendska waxa aad dhahaysaa google trends aa ku qore google trendska markuu kuusoo baxo productiga magaciisa gelinaya meesha productiga magaciisa marka aad gelisid wuxuu ku tusaa wadankee kaaga fiiriyaa uu ku leeyahay tusaale ahaan wadanka waxaad dooranaysa Soomaaliya Mareykanka oo kaleenta aa ugu baahnay productiga ii fiiriyaa leedahay wuxuu kuusoo bixinaa wuxuu ku leeyahay 12 bilood oo ugu dambeysay maa ku tusaa sanadka ugu dambeeyay maa ku tusaa marka jaartii kuusoo bixinaa jaartii waxaa la lahaa garaaf kuusoo bixinaa marka garaafkaasa waxaa ka arkaysaa hoos ma u dhacay kor ma u dhacay bilashaa meesha ku qoran tusaale ahaan bishaan oo kaleenta kor ma u aaday hoos ma u aaday meesha ka fahmay google trends aa la isticmaalaa marka aad rabtid inaad ogaatid productigan inuu high yahay iyo inuu low demand yahay meesha laga fahmaa okay productigaas aad dooranaysid oo high demandiga ah booming industrygana kamid ah waa in uu yaalaa markaa xayeysiinaysid solid company awood ku leh suuqa waa sheegi doonaa kambaniyada suuqa awoodda ku leh product hadduu iska yaalo company aan la kasaynin oo asaga hadduu rabo hataa iska yahay company scam iska yahay oo dadka lagu dhaco hadduu yahay waxaas kuulama talinayo productiga aad dooranaysid waa inuu yaalaa solid company waxaa la lahaa company caalamka magac ku leh awood ku leh dadka dhan wada kasaayaan ay aaminsan yihiin aa la rabaa productigaada inaad kasoo xulatid aa lagaa rabaa ma la rabo shirkado yaroo iska hooseeya oo qof aan kasaynin oo brandigooda la kasaynin lama rabo shirkado waaweyn ku biir si qofka marka oo dhaho tusaale ahaan Amazon oo kale aa ka gata hadduu dhaho Amazon dad badan malaayiin ku xiran trust waayo Amazon shirkad noocaas camal aa la rabaa marka shirkadaha waaweynka ah marka productigaada waa inuu kasoo xulataa company suuqa caanka ah awood dhaqaale iyo awood magacna ku leh aa lagaa rabaa okay mida afraad oo ugu dambeyso productiga high commission rate inuu leeyahay tusaale ahaan productiga waxaa la rabaa marka aad dooranaysid shirkadda markay ku dhahdo commissionka ala fiiriyo commissionkan tusaale ahaan 50 wixii ka badan tusaale ahaan commission rate waxay ku dhahayaan 50% 30% hadda Amazon oo kale 8% waaye waa 8% waaye 8% ma la rabo waxaa la rabaa productigaas commission ratekiisa cala aqali xataa inuu 35 ka badan yahay hadda Clickbank waa arki doonaa Clickbank oo kale 75 uu gaaraa productiga soo geshid 75 boqolkii ku leedahay 50 boqolkiiba ku leedahay 60 boqolkii ku leedahay waxaa la rabaa marka commission rate high ah la rabaa commission rate oo yar ma la rabo 20 boqolkiiba iyo 5 boqolkiiba ma la rabo okay mida ugu dambeyso high average price
tusaale ahaan productiga marka aad soo gadid oo qofka uu ka iibsado macaamilkaada meeqaa ka helay product $35 ka yar laga helaayo ani maku talinayo productiga 35 ka yar haddaa aragtid inaad iska dhaaftid aan kugula talinaa sababtoo 35 micno ma sameynayso ka yar markaad raadinaysid tusaale ahaan waa $20 iyo $10 iyo wax waqti iskaga dhumisid maaha wax weyn raadi juhdi aa la bixinaa meeshan waxaa ka jiro wax badanaa ka jiro oo tartan ah marka tartan maadaama aad ku jirtid low ticket affiliate-kaa sii kala ah low ticket affiliate aad u yar haddaa qaadatid $10 iyo $5 iyo waqtigaa kaaga dhumaayo marka shantaas waxyaabood ayaa la rabaa productiga aad dooranaysid inay ka imaato kow waxaan dhahnay booming industry inuu ku jiro macnaha industry waxaa la rabaa market ama suuq oo koraayo dalabkiisa inuu kamid yahay labo dadka inay aad u xiiseynayaan saddex shirkadda markaas adiga aad ka qaadanaysid oo productigaas aad ka xulanaysid inay tahay shirkad caan ah oo dadka wada yaqaanaan oo lagu kalsoon yahay afar commission rate-ka saaran boqolkiiba intaa ka faa'iidaysid markaa xayeysiisid ama suuq geysid inay tahay mid high ah oo sare tusaale ahaan 50 boqolkiiba inaad ku helaysid tusaale ahaan haddii lagu dhaho $100 shaygan la gadaa 50 boqolkiiba inaa heshid tusaale ahaan ama 75 boqolkiiba inaa heshid saasaa laga wadaa commission rate-ka high average price-kana maxaa laga wadaa lacagta lagaa siinayo 35 inay ka badnaato aa ku talinaa 35 50 40 70 100 wixii ka weyn marka guud ahaan product selection sidaasaa loo doortaa meelahaasaa laga fiiriyaa okay haddaan hore u socono waxaan rabaa marka inaan ii sheego top 10 affiliate marketplace 2020 shirkadaha ugu caansan ee affiliate marketing marketplace-ka loo yaqaan marketplace marka aad maqashid waxaa waaye suuq weyn waa oo intaasoo niche ka kooban suuqyo badan isku tagi ka kooban oo badeecooyin badan oo kala duwan yaalaan waaye marka 10ka shirkadood oo badeecooyinkaas waaweynka ah yaalaan ayaa rabaa inaan ii sheego oo ugu caansan oo inta badan affiliate laga sameeyo okay shirkad koowaad waxaa loo yaqaanaa clickbank clickbank waa kaasaa clickbank waxaa laga yaabaa soomaaliya oo kaleeta camal ma aqbalayaan macnaha affiliate soomaaliya ma aqbalayaan wadamada kale laakiin way aqbalayaan africa qaar ma aqbalayaan adiga waxaa dhici karto shirkadaha meeshan ku jira qaar kamid ah markaad dhexda iska diiwaangeli inaa wadankaadi ka waaysid aa dhici karto ama aadan arkin aa dhici karto marka dhib ha u arkin haddaa tan aa waysid kuwa kale aa helaysaa wax weyn maaha marka clickbank oo kale hadda soomaaliya oo kale ma ka shaqeyso laakiin kuwa kaleenta oo soo socda ayaa ka shaqeeyo marka clickbank shirkadaha ugu waaweyn ay kamid tahay qofkii jaanis uu helayo wadamadan kale joogo clickbank waa ku talinaa inuu iska diiwaangeliyo oo aad iyo aad u fududaa clickbank iska diiwaangelinteeda okay labo digistore 24 waxaa waaye clickbank camal waaye wuxuu ku yaalaa jarmalka laga leeyahay marka digistore asigana muhiim waaye affiliateska dhan way aqbalaan ma ogi soomaaliya in laga aqbalayo in kale I don't know ma sheegi karo marka fiiri adiga in laga aqbalayo isku day haddaa u baahan tahay clickbank iyo digistore waxaa waaye waa la isku bedeli karaa alternative isku yihiin oo isku mid leh isku wax waaye productiga inta yaalo productiga xoogaa badan oo clickbank yaalo 100,000 meelahaas aa lagu sheegaa clickbank productska yaalo digistore laakiin waxaa waaye productigooda waa yar yahay suuqa oo kalenta clickbank yaa kusoo horeysay kan suuqa oo ka dambeeyay adi waxyaabo noocaas waa laakiin muhiimadda waxaa waaye digistore muhiim waaye qofkii ka faa'iidaysanaya ka faa'iidaysto iska diiwaangeliyo waxaa waaye shirkadaha ugu waaweyn oo ugu caansan ay kamid tahay loogadeeda waa taasaa digistore 24 okay shirkadda saddexaad ee aan ku talinayo waxaa la dhahaa jvzoo.com aa la dhahaa ayadane waa clickbank camal leh waaye ayadana sidaan oo kale waaye jvzoo.com soomaaliya oo kaleenta shirkadan caadi waaye waa la iska diiwaangeli karaa way ku jirtaa soomaaliya waa ka isticmaali kartaa caadi waaye waa iska soo diiwaangeli kartaa okay shirkadda afaraad ShareASale aa la dhahaa ayadana sidoo kale loogadeeda waa taasaa ShareASale shirkadaas muhiim waa ayadana shirkadaha waaweyn ku jirtaa oo affiliate marketplace-ka ah okay shirkadda shanaad ee ku talinayo waxaa la dhahaa Amazon Associates aa la dhahaa ayadana loogadeeda waa taasaa Amazon Associates ayadana waxaa waaye shirkadaha ugu waaweyn caalamka ay kamid tahay oo affiliate marketing ka bixiyo weliba qaabka loo yaqaano affiliate marketplace ka bixiyo waaye
Okay, waxaa kalentoo ku xigo 6 commission junction oo loo yaqaano CG affiliates ayadana aad iyo aad shirkadaha ugu waaweyn ay kamid tahay weliba oo aad iyo aad dadka intooda badan iska diiwaan geliyaan oo products badan yaalaan CG affiliates aa loo soo gaabiyaa. Okay, shirkadda toddobaad ClickFunnels. ClickFunnels waa sheegi doonaa. ClickFunnels waxaa loo yaqaanaa aan ituso horta ClickFunnels waa kaasaa loogadiisa. ClickFunnels waxaa waaye inta badan waxaa lagu sameeyaa waxyaabo la dhahay landing page waa noo soo socdaan casharada noo soo socda waaye. Macnaha waxaa lagu sameeyaa landing page ka lagu sameeyaa. Landing page waxaa la dhahaa page lagu xayeysiiyo ganacsiga oo yar yar landing page loo yaqaano ayaa lagu sameeyaa funnel waaye. Marka shirkaddan ClickFunnelska waxyaaba aadka ugu fiican tahay waxaa kamid ah markaa iska diiwaan gelisid shirkaddan marketplace ay leedahay ayada oo gooni ah buugaagaa lagu gadaa noocyo badan leh waxyaabo badan lagu dhex gadaa. Marka linkiga marka aad qaadatid haddii qof uu iska diiwaan geliyo funnelkaas uu sameysto oo xayeysiinta ah marka waxay leeyihiin labo base waxay leeyihiin laba balaan ay leeyihiin qofka inuu $97 bishii dhiibo ama qofka inuu $297 dhiibo. Tusaale ahaan haddii shirkad weyn ay tahay $297 dhiibe hadduu qof caadi ahna 97 boqolkiiba dhiibaa. Marka 97 boqolkiiba waxaa lagaa siinaa 40 boqolkiiba ku leedahay commission ah waana recurring. Recurring waxaa laga wadaa bil walba waa. Bil walba qofka markuu 97 dhiibo adi waxaa leedahay 38.8 aa leedahay. Haddii qaybtan weynta oo 298 ah 297 ahne oo qofka iska diiwaan geliyo oo adi aa keentay qofkaasne bil kasta 118 aa leedahay oo dollar. Marka muhiim waa bil walba waa recurring waa. Marka ClickFunnels waxyaabaha laakiin ku xunta waxaa kamid ah waxaa qasab ah in adi aa iska diiwaan gelisid oo bil walba 97 aad dhiibtid taas waa dhibka ugu daran. Marka qofka haddii la dhihi lahaa dhib ma lahan noo xayeysii laakiin adiga haddaa rabtid ka mid noqo ama iska dhaaf way fiicnaan lahayd. Laakiin waxaa ku qasban tahay inaad 97 aad dhiibtid inaad akoonka furatid oo adi lacag ay kaa qaadaan oo bil walba aad ka mid noqotid ayaga markaasi kuu ogolaanayaan inaa xayeysiisid. Laakiin adigoo ayaga kamid ah ma xayeysiin kartid. Marka $97 bil walba haddaad dhiibtid ayaga waa u xayeysiinaysaa. Marka linkiga ku siinayaan linkigaas ugu xayeysiinaya qof walba oo adi aa keentid hadduu iska diiwaan geliyo qaybta 97 bishii laga qaadayo $38.8 aa leedahay. Halka qaybta 297 hadduu iska diiwaan geliyo qofka aa keentidna aa helaysid $118. Marka muhiim waaye ClickFunnels wuxuu kamid yahay affiliate programyada aad iyo aadka loo xiiseeyo kamid tahay. Marka waa iska diiwaan geli kartaa saas waa. Laakiin diiwaan gelinteeda waxaa shardi ah inaa ayaga kooda horeynta aa iska diiwaan gelisid oo aa ka mid noqotid macaamiishooda taas ay kugu qasbayaan. Marka haddaa u baahan tahayna waa ka mid noqon kartaa haddaa iska dhaafaysidna waa iska dhaafi kartaa. Marka laakiin guud ahaan ClickFunnels wuxuu kamid yahay marketplace ka ama affiliate programmeska aadka iyo aadka u fiican uu kamid yahay oo lacagta badan laga sameeyo. Okay, midka sideedaad Impact Radios aa la dhahaa isagana waa affiliate program waaye. Waa kaasaa loogadiisa Impact Radios aa la dhahaa. Waxyaabaha aan ii sheegayo dhan waxaa waa kuwa ugu magaca dheer ugu caansan oo maxaa la dhahaa ii sheeg solid companieska aan ii sheegayo waa kuwaana ugu caansan. Waxyaabaha yaryariiska dhan iska dhaafa shirkadaha waaweyn ka qaata. Okay. Midka sagaalaad waxaa loo yaqaanaa Rakuten Marketing ama Rakuten Advertisement waa la dhahaa. Rakuten Advertising waa la dhahaa. Rakuten Marketing waa la dhahaa. Ayadana sidaas waa loogadeeda Rakuten. Affiliate marketplace kay kamid tahay. Waa iska diiwaan geliga. Waxaan dhan arkaysa free waa iska diiwaan lacag maaha. Okay. Ugu dambeyn Market Health. Market Health-gan wuxuu gaar u yahay caafimaadka. Macnaha badeecooyinka yaal dhan caafimaad leh waaye. Qaybta caafimaadka wuxuu xooga saaraa. Marka asigana sidaas waa loogadiisa Market Health yaa la dhahaa. Products-ka yaal dhan waa health caafimaad leh waa bis. Halka kuwii hadda aan soo sheegayna productyo badan ay wada yaalaan technology wax kasta ay yaalo. Laakiin Market Health-ga productiga caafimaad leh waa wax kale ma hayaan ayaga caafimaad leh xooga saaraan. Marka 10kaas hadda aan kuu soo sheegay waa 10ka shirkadood ee maanta ugu sareeyo marka laga hadlayo affiliate marketplace. 10koodana markii la isku celceliyo waxaa loo yaqaanaa low ticket affiliates. Lacagaha ay bixiyaan lacaga aad u yar waaye. Waxaa waaye $100 iyo wax ka yar iyo halkii xabo aa iibisid $100 wax ka yar aa ku helay wax badan ma helaysid. Marka muhiim waaye qofka bilaaw hadduu yahay low ticket-ka iskaga bilaawdo. Hore ha u socdo. Tamam. Haddaan hore u sii socono
markaan waxaan galeynaa HTAB High Ticket Affiliate Program. Haddeeda waxaan kasoo hadalnay low ticket affiliate kuwa lacagaha yaroo $100 ka yar aad helaysid halkii xab markaa iibisid oo xayeysiisid lacagta badan laga samey karin waa kuwaas. Waa ka samey kartaa adiga laakiin kuwaana xoogga la saaraa. Tamaam. Waxaan kuu soo qaadi doonaa ama kuu sheegi doonaa shanta ugu sareyso ama shanta barnaamij ama shanta shirkadood ee bixiyo High Ticket Affiliate Program. High Ticket Affiliate hadaa maqasho waxaa la wadaa lacagaha ugu badan dadka bixiyo. Tusaale ahaan hal product ayaa iibinaysaa waxaa ka helaysaa $500 iyo wax ka badan. Tusaale ahaan adi dhan $1000 aa u baahan tahay 2 product ayaa qof dadka iibinaya oo kaliya. Productiga adi ma lihid. Productiga qof kala sameeyay. Adiga waxaad dhahaysaa productigaas waa recommendation ka siinaya oo kaliya. $1000 aa helay 2 qof bis. Halka low ticket affiliateska aa u baahan tahay dad badan inay kaa iibsadaan. Marka high ticket affiliateska aan fiirino shanta shirkadood oo ugu caansan oo ugu waaweyn oo lacagaha ugu badanna bixiyaan. Shirkadda ugu weyn ugu muhiimsan aan kula talinayo waxay tahay Regal Assets. Regal Assets waxa waaye shirkad investment niche way ka mid tahay macnaa maalgashi waa dahabka iyo maxaa la sheeg qalinka iyo cryptocurrencies-ka lacagaha iyo waxyaabahaas ay inta badan ka ganacsadaan saacadaha qaaliga ah iyo waxyaabahaas ka ganacsadaan. Marka affiliate program ay leeyihiin affiliate program-kooda 2 qayb uu iskugu jiraa. Waxaa waaye qofka haddaa keentid oo kusoo xirtid oo emailkiisa iyo telephone numberkiisa iyo magaciisa oo kaliya foomka hadduu buuxiyo $100 ay ku siinayaan. Asagoo hataa wax sameynin. Asigoo wax iibsanin asigoo wax invest gareynin $100 aa helay. Okay. Haddii qofkaas aa keentay oo investment uu sameeyo oo shirkadii uu ku qanco oo shirkadii uu wax ka iibsado oo investment sameeyo 3% aa helay. Waxaa laga yaabaa inaad is dhahdid Ibrahimow Amazon Associated 8% wax yar aa ku sheegaysay 3% maxaa ka wadaa. 3% waxaa laga wadaa qofkan maalgashanayo lacagta uu bixinayo waa lacag 10,000 ka badan waa. 10,000 aa u yar. 10,000 marka haddii la dhaho 3% la dhaho lacag badan kaaga soo aadayso 10,000 3% haddii la dhaho. Okay. $200 camal lacag oo tiro badan kaaga soo aadayso. Okay. Tusaale ahaan hadduu bixiyo qofka waxaa jiro balaan waxaa jira 65,000 oo u yar yahay. Qofka 65,000 markuu maalgeliyo haddaa helaysid ka waran $1,950 lacag badan waay. Marka muhiim waaye marka shirkadan Regal Assets aa la dhahaa waa ku talinaa. Linkiga iyo waxaas dhan waxaa waaye Gmail-ka kugu jiraa waa iska diiwaan geli kartaa. Okay. Shirkadda labaad waxaa loo yaqaanaa Intra Institute ayaa loo yaqaanaa. Intra Institute ayadana sidoo kaleente waxyaabaha waxay ka hadashaa oo affiliate marketing iyo ganacsiga sida loo waxeeyay iyo waxyaabahaas ay ka hadashaa ayadana. Waa kaasaa loogadeeda Intra Institute. Sidoo kale waxay leedahay balaan ah $8,000 ay leedahay. Halkii aa gadid $8,000 aa ka helay. Hal sale aa sameysid $8,000 waay. Macnaa balaana badan qaybo badan. Qaybta ugu sareyso waxaa waaye halkii qof aa ka gadid $8,000. Qofkaas wuxuu gadanaa lacag $16,000 oo dhiiba 50% yaa ku leedahay oo $8,000 ah. Marka muhiim waaye. Okay. Shirkadda saddexaad Awol Academy aa la dhahaa. Awol Academy ayadana waxaa lagu bartaa affiliate marketing-ka lagu bartaa. Hadda aan ku barayo camal aa lagu bartaa. Marka iyo waxyaabo kaleento waxay leedahay oo business-ka iyo waxyaabahaas ku saabsan. Marka ayadana sidoo kaleente balaan waxay leedahay oo 5,000 per sale ah. $5,000 halkii sale oo la iibsado ayay leedahay. Ayadana muhiim waaye waa ka faa'iideysan kartaa Awol Academy. Okay. Sidoo kale waxaa ka mid ah Shopify. Shopify waa wada naqaanaa waa e-commerce waaye. Baqaarada internetka oo lagu gato waxaa waaye oo dharka iyo waxyaabahaas. Adiga waxaa waaye suuq internetka ku yaala waa qofka uu sameysanayo. Suuqaas uu ka gadanayo waxaa la isha badeecada wuxuu u rabo uu dadka ka iibinayo waaye oo hadhowna loo rarayo qofka Shopify. Marka Shopify ayadana sidoo kaleente balaan waxay leedahay $2,000 ah. Tusaale ahaan qofkii ka furto Shopify ka furto website ama messenger ka furto oo Shopify ka furto $58 ilaa wuxuu u dhexeeyaa $2,000. Marka haddii qof oo maxaa la kugu soo aado oo
baqaar weyn furanayo oo kaleento oo lacag badan dhiiba $2,000 aa helay hal qof waa micnaha Shopify ayadane. Okay, midka ugu dambeeyo 5 waxaa loo yaqaanaa Six Figure Mentors aa la dhahaa asagane. Six Figure Mentors asagana wuxuu ka hadlaa waxyaabahan oo make money online iyo sida internetka lacag looga helo iyo businesska sida loo aasaasay iyo waxyaabahaas uu ka hadlaa. Asagana sidoo kaleente 2.5 waa $2,500 ka helay per sale-ki halkii sale oo halkii qof oo u keentid oo wax ka gata 2,500 balaan kamid ah balaanadoodu kamid yahay waa ka gaari kartaa ayadana waa lacaga aad u badan 2,500 halkii sale aa ka samaysid. Okay, intaas horta waxaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeeni oo caawa aan kaga hadlayay. Marka waxaan rabaa xoogaa yar waxyaabo baraarujin ah inaan sheego notice ah. Inta aan soo sheegnay midka aad ugu baahan tahay waa ka qayb gali kartaa oo wax hadda ku dhahaya 1 iyo 2 ka qayb gal ma ahan laakiin adaa lagaa rabaa midkii markaas adiga ku anfacayo oo shirkadii adiga ku anficayso adigaas iska diiwaan geli. Shirkadahaas aad arkaysin kulligooda waxaa waaye free waaye wax lacag ah ma ahan qofka free application form uu buuxinaa application formka markuu buuxiyo ama waa laga soo aqbalaa ama waa loo soo diidaa. Okay, waxaa muhiim ah qofka inuu haysto website haddaadan website haysanin shirkadahan makaa yeelayaan inay hataa ku aqbalaan. Marka si aa u heshid waxyaabahaas dhan commissionadaas iyo waxaas aa ugu tashatid website sameyso. Website $83 bis aa kaaga bixayso. Website-ka mar kasta ma ku khasaaraysid waa ku faa'iidaya website-kaada. Website-kaada sameyso $83 sameyso linkiga iyo wixii dhan waa kuu soo diray gmail-ka kugu jiraa ka sameyso website-kaada $83 kadib designing iyo wax hadaa u baahan tahay Fiverr ama People per hour ama Guru ama freelancer iyo meelihii aan xal dhan sheegay insha Allah tacaala ka raadso ha laguu sameeyo ha laguu qurxiyo saas ku sameyso website-kaada $83 si oo aa uga qayb qaadatid affiliate marketing-ka programmes-kan. Waxaa jiri karo programyo caadi oo meeshan ka mid ah inuusan kaa rabin tusaale ahaan aysan kaa rabin website laakiin inta badan website waa u baahan tahay mar aad ka maarmeynin male website waa u baahan tahay. Website sameyso haddaa rabtid in affiliate marketing-ka aad guul ka gaartid. Okay, aad iyo aad ayaa u mahadsantahay caawana cashirkeena meeshaas ayuu noogu eg yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.